daawada ma qiyaasi kartaa nin ah madaxa shirkad dalxiis oo caalami ah nin loo aqoonsan yahay hogaamiye mashruucyo balaayiin dollar ah inuu si rasmi ah u qaato islaamka? maanta waxaan ka hadli doonaa sheeko runtii lama filaan noqotay. John Pagano, CEO-ga shirkadda weyn ee Red Sea Global ayaa si rasmi ah u qaatay diinta islaamka. maxaa dhacay? goormuu islaamay? maxaase ka dhigay arrin si weyn loo hadalhayo? daawade ha dhaqaaqin, sababtoo ah waxa aad maqli doonto waa mid qalbiga taabanaya. qaybta koowaad, qaadashada islaamka. warar si degdeg ah ugu faafay baraha bulshada bartamihii Febraayo 2026 ayaa sheegay in John Pagano uu si rasmi ah u shaaciyay inuu qaatay islaamka. arrintani ma ahayn mid lama filaan ah oo gabi ahaanba cusub, sababtoo ah bishii Oktoobar 2025 warar hoose ayaa tilmaamay inuu ahaa qof dhawaan islaam noqday. laakiin markaan warku wuxuu noqday mid cad oo rasmi ah. daawade ninka hogaaminaya mid ka mid ah mashruucyada dalxiiska ugu waaweyn bariga dhexe wuxuu doortay diinta islaamka. ma ahan arrin yar. qaybta labaad, lagu arkay xaramka. habeenkii ugu horeeyay ee ramadaanka 2026 qiyaastii Febraayo 18 John Pagano waxaa lagu arkay gudaha masjidka Al-Haram, xaramka barakaysan ee Makka. wuxuu xirnaa dhar dhaqameed Sacuudi ah, wuxuuna la wadaagay muuqaal uu ka diray halkaas isagoo u hambalyeynaya shacabka Sacuudi Carabiya bisha Ramadaan. tani waxay noqotay muuqaal si weyn loo wadaagay. qaybta saddexaad, jinsiyadda iyo kaalintiisa. bishii Oktoobar 2025 John Pagano waxaa la siiyey jinsiyadda Sacuudi Carabiya iyadoo amar boqortooyo lagu siiyey. tani waxay la xiriirtay kaalintiisa muhiimka ee ku aadan horumarinta aragtida qaranka ee loo yaqaan Saudi Vision 2030, gaar ahaan mashruucyada dalxiiska ee badda cas iyo Amaala oo uu hogaaminaya isagoo ah CEO-ga Red Sea Global. nin ajnabi ah oo hogaaminaya mashaariic taariikhi ah hadda waa muslim si rasmi ah. qaybta afraad, farxad iyo xasuusin. maalin walba kumanaan qof ayaa soo islaama. tani waxay muujinaysaa in diinta islaamku ay tahay mid qalbiyada taabanaysa. laakiin isla waqtigaas waxaa jira qaar ka mid ah dadkeennii oo ka fogaanaya diintooda. alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi, micnaha haddii aad jiisataan alle wuxuu keeni doonaa qoom kale oo aan idin la mid noqon doonin. fariintu waa caddahay. haddii aad daawada dhamaysatay ku sali nabigeena sharafta leh Muhammad sallallahu calayhi wasallam. haddii aad jeceshahay sheekooyin taariikh iyo dhacdooyin la yaab leh ku xirnoo channelka Abu. like, share, garay, subscribe samee.